بسم الله السلام عليكم صاحبيال سو dhawaada maanta iyo muuqaal cusub maanta muuqaalkeenu waxa ku saabsan yahay dhinaca iyo TikTok waxayna isleeyi doonaa muuqaalkii ugu dambeeyay ee baraha bulshada qabsaday amba haystay imika waxa isleeyi doonaa muuqaalka iyo falcelinta ay dadku sameeyeen dad badan ba comment badan soo bixiyay ha comment laga soo bixiyay waa 10,000 meelaha ay gaarayaan horta muuqaalkaas la daawano halo hablahan ba sheegay isxayeysiinaya hablahan isxayeysiinaya anaga $1 baan lagu mehersanaya 100 geela baan lagu mehersanaya saacada laga bilaabo kaygana iiba kaygan soo ma aragtaan kaasa iiba gabadhi $1 haysatay soo garaatii kale ina go hide gal magaalka waxaan noolay mana samkayga hada bilaash kala iiba waana $1 waxaan noolay mana saare idii ka yeeli mayno waxaan kana iiba ni walaba waxaaga iibso noolay manina anaga waxaas horta ninkani waxaan u maleynaa inuu yahay nin soo jeeday hore lagu soo adkeeyay filaya ninkan waxa la leeyahay inuu waqooyi yahay haga waqooyi soo jeedo heber aan filayn yahay waliba say dadku commentiga qaar ku qorayeen dadku ka falceliyeen marka ninkan waa nin hadaladiisu fan yihiin soo hadlayo iyo soo iska soo dooy marka bal falcelinta dadka ayaa isleeyi doonaa dadku say waxaan maleynayaa rag iyo dumar meesha falcelinta ku jira commentiyada rag iyo dumar ku arkay rag way difaacayeen wiilku difaacayeen dumarkuna dhinaca way ka soo jeedeen marka bal commentiyada iyo dadku waxa ka yaabeen commentiga koobaad ayaan eegi doonaa commentiyada badiin la toon kuma gaarayaan marka bal inta ugu muhiimsan ayaan eegi doonaa insha Allah marka meeshan waa la kala jabay wiil iyo gabdha loo kala jabay wiilashu waxay leeyihiin ku soco dumarkuna waxay leeyihiin dhinac ka soo jeedaan oo mar qaar sagaran waxay leeyihiin marka bal commentiga koobaad iyo qofka soo qoray waxaan u yiri TikTok qof ugu dambeeyay uu soo galay macnaha TikTok cid kama maqna weeyaan cid walba ku jirta qof ugu dambeeyay maanta soo galay waa yahay commentiga labaad gabadh baa soo qortay waxay tiri discount noo sameeyo tiri waxaan waa qaaliye discount noo sameeyo waa yahay commentiga saddexaad qof soo qoray kaaga iyo kayga qaalisan horta taas su'aal ka taagan tahay kaaga iyo kayga qaalisan ay tiri kayga qaalisan horta commentiga xiga qof soo qoray warkan waan aqaana wallahi xaafadeedu hormari jiray oo miskiin baa moodayay soo kan waa shibil mid gareeya laga yaabaayo oo de arkay waxaan wuxuu yiri qofka waan aqaanay miskiin baan haysan jiray ayuu yiri soo kan waa shigoor ma waash commentiga xiga gabadh baa soo qortay ayaan maanaynaa tahay orod dameeraha ka iibi yaa wax ku falaya orod dameeraha ka iibi taaganteeda yaa wax ku falaya haye commentiga xiga talyalandheere oo isaaqa wait commentiga saddexaad qof baa dhameeyay arintiba ninkii shaandada ka xarooday waxaan waa gabadh baa soo qortay commentigan sida loo kala foolxun yahay ayaa loo kala edeb daran yahay witri sida loo kala foolxun yahay ayaa loo kala edeb daran yahay qof soo qortay horta bal dhiiriga dhaqaaq hadhowaad guursanay horta bal dhiiriga taagantay dhiiri ma maayaan yahay se anaga joog meel dhiirigu taagan yahay waxa tiri horta bal dhiiriga ka dhaqaaq hadhowaad guursanay commentiga xiga anaga ku soo qosay commentiga xiga waxa weeyaan talyalandheere iyo khatar dhukuro ayaa iska dhalay ay tiri taas talyaneera waa qaana laakiin khadar dhukada ma garanayo waa yahay qof kala soo qoray gabdhow kaygu waa raqiis buu yiri malab saafiya weeyaan kayga iibsada gabdhow kaygu waa raqiis malab saafiya weey waa yahay commentiga xiga wax qof soo qoray waliba dumarka ugu badan commentiga soo qoray dumar baa u badan ma qabriga ka hooseeya ayaa ka soo baxday kole reer adduunyo ma tiide
waxay moodaysaa markaa meeshan qofkan taagan yahay meel xawaale wax noocaas aan filayaa inay tahay maaha warmaynaya dhiirigu taagan yahay markaa waxay tiri ma qabriga ka hooseeya ka soo baxday reer adduunyo meekide ay commentiga xiga qof kala soo qoray iPhone 13 Pro Max ayaa ka qaalisan ta ku ka sheegay warna hadana iPhone 13 Pro Max ka qaalisan yahay commentiga xiga wuxuu yiri muhiimadu waa inuu ka maseeray 200 gram dahab waxa laga yaabaa ninkan 200 gram dahab loo sheegay ama la hormariyay saas ugu diidaa laga yaabaa saas uu soo galay ciil uu soo galay TikTok waxa yiri anoo dhibanaya waxayga waa yahay wiil baa soo qoray wiil hoog alaabtiisa lacagaystay wiil haye mid kala soo qoray Khabi Leym oo Soomaaliya wada ninkan Khabi Leym soo eegin mooti dhinaca madowga iyo waxa markaa mid baa soo qoray Khabi Leym oo Soomaaliya mid kala wuxuu soo qoray Bahalul hataan maqasho waa kan Bahalulin waa waxa reer Carbeeda oo Carabti xaga soo jeeda walaashaas ugu leeyahay Bahalul hataan maqasho waa kan waayahay wiil baa wuxuu soo qoray dumarka waa naga dhicisay wallahi another level baatay dumarka waa naga dhicisay another level baatay commentiga xiga qofkan waa wiil baan maleeyahay wiil wuxuu yiri diyaar weeye waa iibinaynaa wax badan baa la inaga soo iibiyay waqtigii ragu iibin lahaa baa la gaaray wayri waqtigii ay iibin lahayn ayaa la gaaray commentiga xiga waxa weeye wali cusub baa inoo timide abshir dhaha wali cusub baa timide ali abshir dhaha wiil ninkan marka commentiga intaas ugu muhiimsan meeshana waxa ka muuqda in rag iyo dumar soo galeen raguna dhinacooda ka soo hadleen dumarkuna way wada socdaan maanta muuqaalku intaas saaxiib noo yahay hadda nagu cusub tahay fadlan subscribe si ay muuqaalada cusub ku soo gaaraan hadda horena loo joogtay like share comment ku xariiqa